walaalkii loo xiriyo aadna soo qoyso walaalkii loo xiriyo waayahay ogaaska iyo madax dhaqameedka kale marka ay sidaas u hadleen ay warbixin ka dhiibeen cidda dhibaatada ku haysa iyo waxa ay Soomaali ka doonayaan waxaa ka jawaabay Mustafa Maxamed Umar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. madaxweyne Mustafa wuxuu halkan u diray ciidanka liyu booliska sida gaarka u tababaran waxayna weerar culus ku qaadeen ciidamadii afarta weerarka ku soo qaaday muxuu ahaa dhulka Soomaalida gobolka City oo deegaano badan qabsaday ciidamadaasna waxa weeye jab iyo halaag baan ayaa la gaarsiiyey waxaana laga burjiyey dhul badan oo ay horay qabsadeen waxa weeye weli xaaladdu ma degana shalay ayaa ugu dambeysay waxay meesha ku soo garaaceen madaafiic bi'am ah hase yeeshee waxaa dagaalada hadda hakiyey muxuu ahayd roob aad u daran oo meelgaar ayaa deegaanka ka da'aya balse qorshuhu wuxuu yahay shacabka deegaanka iyo ciidamada liyu booliska oo iskaashanaya in ay anfarta ku celiyaan meeshii ay ka soo ogaaska beesha ciise wuxuu mar kale si gaar ah ula hadlay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed isagoo oo fariin qiiro leh jeedi bal haddana isagana aan daawano Soomaali waxaan ugu baaqaynaa ogaasadeeda salaadiintooda garaadada shir degdeg ah oo ku badbaadinayno dhulkii aan Itoobiya ka deganayn iyo isir Soomaali la tirtirayo aan kaga tashanayno inaan shir degdeg ah aan iskugu imanno jijigay iskugu tagnayaan Soomaali ugu baaqaya shacabka gobolka City-na dhammaan iyo Soomaaliba barnaamijyada kaga soo horjeediin ciidanka barakicinaya dadkeena imika daadsan dhulka ee sharciga dhistay ee laga hadlaayay meeshii uu degay kaga daba tago barakici barnaamijyada ku muujinaysiin diidmada aad ku muujinaysiin bari laga bilaabo inaad qabatiin baan ugu baaqaynaa guud ahaan Soomaali gaar ahaan gobolka City arrinta kaga dhidhisiin hadaad aamusiin maanta aad ka aamusiin arrinta waa arrin xaqiiqo dhab waxaan ii sheegay bari toona nin walba gurigaaga kugu soo gali nin walba meesha aad joogtid buu kugu soo gaaray anduu iga dheer yahay iba dhawaad leedahay aamusisid waa wax bari kugu iman doona bari laga bilaabo barnaamijyada arrinta kaga soo horjeedid ficilka ciidanka Itoobiya ay sameynayaan ee direeska laga soo horay intii hore naga barakacshay imika daba socdaan aad kaga dhidhinaysiin aad ku diidan tihiin yaan ugu baaqaynaa inaad samaysiin oo nagu qasba maanta waayahay ogaaskani waxa weeye nin lagu yaqaano inuusan idaacadaha ka hadlin inuusan siyaasadda dhex gelin oo aad iyo aad u afgaaban keliya ku mashquula danaha beeshiisa hase yeeshee markan waxa weeye waxay ka fursan weyseen idaacadaha ka hadlo oo gurmad u muujisto guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maadaama dadkiisii la xasuusto ogaaskani waa ogaaska rasmiga ah Ismaaciil Cumar Geelle oo ku mashquulsan hurinta colaadda gobolka Sool waxaad ogtihiin Ismaaciil Cumar Geelle inuu muxuu ahaa yacni qisaasta iyo saanada kaleba la garab taagan yahay muxuu ahayd beeshiisa duulaanka ku soo qaaday beesha buuqa waxaan soo xasuustay markaan arkay dhibaatada ka jirta dhulka Ciisaha waxaan soo xasuustay markaan arkay dhibaatada ka jirta dhulka Ciisaha ee uu iska dhigatirayo Ismaaciil Cumar Geelle waagii ay isqabteen Sacuudiga iyo muxuu ahayd Khadar ayaa wiil Arab ah oo farshaxamiista wuxuu sawiray nin Araba oo ka wada Sacuudi Carabiya oo qori dheer wata oo dhanka muxuu ahaa Qadar u siisa iyo wiil Falastiiniya oo intuu ka soo daba orday halkaas dambe ciidamada uga dhigay Israa'iil yani halkaani jirta dhaqanka ma jirto يعني وحاوي ويرشنمدا سياسة gashaan meesha rasmiga ah
ee loo baahan yahay inaad cudud iyo ciidan ku bixiso marka aad ka marixdo ee meel aan cududaada iyo ciidankaaga looga baahnayn aad macnaha juhdi geliso waxa weeye weershanimada siyaasadda waxa weeye ismaaciil cumar geelle labada qolo ee meesha ku dagaalamaysa ciisaha iyo canfarta labadaba madaxweyne isagoo xataa qolala safar ayuu macnaha kala dhex geli karaa oo labadaba waxa weeye saameyn ku leeyahay haddii muxuu ahaytoy uu canfarta wax ka qaban waayena shacabka isaga uu ka dhashay ayuu si hoose u taageeri karaa laakiin intaba lagama hayo oo waxa weeye ciise in la baabi'iyo iyo in muxuu ahaa ciise noolaado isoo kala badala sidoo kale madaxweynaha federaalka soomaaliya ma oga in uu madaxweyne u yahay shanta soomaaliya madaxweynaha federaalka waxa weeye wuxuu madaxweyne u yahay shanta soomaaliya kan gaaraysa jooga kan jigjiga jooga kan hargeysa jooga kan muqdisho jooga iyo kan jabuuti jooga waa inuu intaba ka fikra marka waxa weeye meeshaas dhibaataa ka socota madaxdii erer samaarana iyadoo shacabka la baabi'iyo uu yahay erer samaare waxay ku mashquulsan yihiin baabi'inta shacabkan daarad ismaaciil ee soomaaliyeed ee degan gudaha soomaaliya meeshii la rabo inay arrintaas si cadaalada wax uga qabta waxa weeye marka war nimankiinan madaxda ah ee saddexda ahow muuse biix xasan sheekh ninka la yidhaahdo ii sheeg ismaaciil cumar geeli war haddii hawshan aad wadaani ingiriisimka ay wax tarayso war sitiyaa laydinkaga baahan yahay ee siti garab siiya dadkan soomaaliyeed ee dhulka horta ah deganna waxaa weeye u kala cadaalad fala oo hala kala safano ha qabyaaladaynaya cidda aad isleedihiin waa garab daran tahay gardarrada saara kulley way muuqatahay aniga oo qarso adinkoon dab ku sii shidin meesha adinkoon meeshaas ka qabyaaladay waxaa weeye dadka waxtara oo ku daysada ninka la yidhahdo mustafa cagjar isagoo u jeeda waxaa ka socda lascaanood oo ciidankiisa halkan u soo jeedin kara ayuu yidhi alla ilahe ciidankii wuxuu mudan yahay dhanka siti u bixiyo oo maanta waxaa weeye dad soomaaliyeed baa la baabi'inaya marka halkaas ayuu u jahaystay aduguna lascaanood u soo jahaysateen baaqi ugaaskana waxba ka meedan sidoo kale nabadoonnadii idaacadaha ka hadlaya dagaalka lascaanood markuu bilowdo magaca erer samaare ku hadlaya war ninkan ugaas mustafa maxaad ugu jawaabi weysay toban maalmood baa laga joogaa 26kii maarso ayay ahayd marka uu shirka jaraad oo codsiga soo jeediyey isagoo odayaashiisaba ay soomaaliya oo dhan codsiga u soo jeediyeen war aawa kuwa muqdisho ka hadlaya ee lahaa waa erer samaare lama taaba kara muxuu ahay doy somalilan kuwii lahaa meeye maxaad ugu jawaabi weyseen ugaas mustafa dhibaata haysata dadkiisa la baabi'inaya waad maqlaysaan waxay leeyihiin dowladda federaalka etoobiya laftirkeeda na barakicinay oo waxay leeyihiin dhulka soo guura dhulka laga qaadaan waddadaas tareenka la isku haysta waxaa la soomaali in laga saaro oo muxuu ahay afartaas milyan afartu waxay haystaa xuquuq culus oo waaweyn oo waagii muxuu ahaa nimanka la yidhahdo ii sheeg tigreega lala diriyo la siinay yacni la siiyey oo weliba sida aan xogta ku helayno iyaga iyo maxaaraduba way diideen hubka cuslaa inay soo celiyaan iyadoo heshiiska tigreega dowladda etoobiya la gashay ay ka mid ahayd in hubka culus ee maxaarada iyo la siiyey nimanka la yidhahdo ii sheeg maxaa la yidhahdaa canfarta in ay celiyaan dowladda maadaama ay ahayd labada qolo oo sida adag ula dagaalantay oo ahayd tigreeg heshiiska xataa ninkii la dhihi jiray abiy axmed uu ka qaadi waayo marka hubka cuslaa ee federaalka ay kasoo heleen dowladda soomaaliya markaasay ku barakicinayaan oo xataa new booliska soomaaliya ama mustafa cumar uu dirayo waxaa weeye toban culus dii ambashan marka waxaa weeye taas ayaa uga baahan madaxda inay soomaaliya inay af iyo aadgelka ku taageeraan iyo inay karaan u diraan profesor haddii aysan ciidankiisa dhaqaalo u diraan idaacadahana ka hadlaan oo ilaa dowladda federaalka etoobiya ismaaciil cumar geelle iyo muxuu ahaytoy xasan sheekh waa way awoodaan inay abiy axmed yidhahdaan waryaa hoy meesha waxa ka socdaan wax ka qabata marka waxaan leeyahay weershanimada siyaasadda gashaa idin hayseen indhihiinna inta bagax kala siisaan warheerde mustafa cumar iyo muxuu ahaytoy shacabkaas uu difaacayo garab istaaga barnaamijkeeda koobna intaasaan kusoo gabagabeynaya hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu